marka waxa weeye waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid tuu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay ilaahayna ka soo waaray waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leh waan ku dhaqaaqomayo muslimiinta meel kasta oo joogto naga soo gaaraan ku oranaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan la joogaa walaalkeen maxamed muuse gamteesa oo 20 sanadood xidhnaa intii u dhaxaysay 2001 2021 shalayna soo baxay Allah mahadi waxaan doonayaa dhowr su'aalood inaan weydiiyo walaalkeen maxamed oo ku saabsan waayihiisii xabsiga ehelkiisii iyo goortu ka yimi iyo wixii war maxaa ugu dambeeyay qorshihiisa mustaqbalka waxaan doonayaa marka hore inaan ku bilaabo xagga ehelkiisaan doonaya ehelkiisa maxamedow waxa tahay nin oromana way balaaran tahay kaalkee baa tahay oromada magaalada deegaankee deegaanka Jimma Baajifar wala waxa la yiraahdaa Jimma Baajifar xagee ku taala Jimma hadda sabab ka sheeya xagee bay si xigtaa xagga Suudaaniga xagga Suudaan bay si waan gartay marka magaalada gudaheeda deganaydeen mise waxaad ahaydeen beeratadaydeen may wali magaalada Jimma ku dhaabisaaw dhowr magaalo ku igaaw an ka baa Jimma xagga shiisheeyaan meel bunka wala ku beero lagu beero marka waxa ahayd dad waxaad ahaydeen meel tuulada tog tuuladina maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa gaatira wala yiraahdaa ma sha Allah gaatira waxa weeye Jimma ayaan magacaasna waan maqlay aniga laftaydu waxa weeye waa magaalo mise waa gobol waa isli Hargeysa kale wana qoonaya waa magaalo waan gartay goorma kugu dambeysay ehelka xabsiga ma kugu soo booqan jiray maya imika inta 2000 intan ka soo baye 2001 waa la soo qabtay xabsiga waa la yidhigay reerkagii ma arkin maxaa dhacay waa weeye telefoon aniga xabsi ku jiro oo soo baye meelun ku ilalu male ma argil reerka intaad ku jirtay kugu meeman may miyana ka warqabin may ma magali inaan dhimtay waa lagu waastay inaad dhimatay waa la iloobiya inaan nolol lama haysto yani inaad nooshahay iyo inaad lama oga lama oga halkay kugu ogaayeen marka hore inaan dhoofin doonaya halka marka soo gaarulaatiga dhamaatay ani shaqayso intan gore ilaa kulme shirka shaqayso iska dhoofin gore ana shaqo bilaabe arinta afsiga soo galay marka tahriib baday inaan taariibun doonaya marka ma ku ogaayeen ehelku inay soo tahriibtay may markaas ay ga dambeysay aniga ama wax kale markaad soo baxaysay ma ku ogaayeen waxay kugu ogaayeen tahriib xagad u socotay Suudiga waayo kadibna arrin baa kula kulmay iyagu inta ma ogaadeen oo imika waxa jira dad badan oo ka soo jeeday Ethiopia warkaaga meel la gaarsiin may lama gaarsiin meesha waa afsi telefoonka meesha lama ogalo telefoonka ma soo galo meelun ku ilalu malaya xabsiga lagu ogolo maxaa dawala ku qabto meel wala ku geenaya wala ku seelanaya waa qol gaar lagu xidhay telefoon way xabsiyadeed baad ku jirtay ma hal xabsiyaad ku jirtay mise xabsiyo kala duwan halkan xabsigii hore waa la baabee waa la qaali 2000 Madeira waa la geeyay koob 10 sano joogay Madeira 10 sano ku xidhnay 2006 baa laga qaaday xabsiga Hargeysa xabsiga waa la dhisay marka maxaa laga qaaday xabsiga waa la dhisay marka Madeira lagu 10 sanadood oo min 12 bilood soo waa gartay kadibna waxa lagu soo celiyay waa la soo helay 2012 ayaa lagu soo celiyay xabsiga ilaa imika ku jirto ka soo baxay waaye waxaad ka warantaa bal waayahaga xabsiga qof aan xabsiga fikrad ka haysan bal uga waran duruufta iyo nolosha halka ka jirta sawir naga sii
walaalo meesha waa cabsiyo waxaa laali waa soogal sooba loogaabti buu na siinayaa waa lana swareynayaa meesha waa cabsi nin walba u garanayaa cabsiga waa sheeko male kii shalay soo galay kii sana u joogo kii 10 sano u joogo cabsi waa isku midi alxamdulilah rabbil aalamiin waa ilaa maan nagina xabsiga Mandheera ka waran iyo xabsiga Hargeysa keebaa la qaatay wallahi xabsigii Mandheera biya qaraaru ku waabisa biya saa ku dilaya qof biyaha qaraara xabsiga Hargeysa way wanaagsan yahay iyadoo dhaama xabsi waa wanaag male xabsi waxaad ka warantaa sadaadu marna ma gooda inta ku jirtay oo ma quusatay mise rajo ayaad sugi jirtay mar kastaba inay timaado wallahi waliga inta meesha ku jiro waan ka baayaa ma orayn ilaa inaga soo gaaray alaaf kama sheekayn karayo aan ka soo baa ma oran jiray anigu waan quustay qaar badan meesha ku jira kuwaas waan u ducaynaa insha Allah ilaa 8 qof ku jira qaar 9 iyo 12 alhamdulillah rabbil alamin wa ila mahdi kuwa meesha ku jiro waan u ducaynaa insha Allah sida degilay ka soo saaro marka waxa weey waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid atuu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay inaga soo waaray ninkii shaqeeyay ilaahay baa gudiya insha Allah warba akra shaqaysto wallahi ma sheegin karayo qof reerkiisa joogin qof reerkiisa joogo isku mid maaha qof reerkiisa joogan iyo qof aan reerkiisa joogin isku mid emisa dhimtay emisa wala siiday intaas iska jiifa انت الله نارستو وانو داينا انت ميجي كو جرتو الله فوق سو سارو waxaan ku weydiinayaa hooyo iyo aabbo ma nool yihiin walaalo aabbo aniga Itoobiya joogo dhintay hooyo u joogtay waligiiga dambe ee walaalayo jooga imika war maayo markii kugu dambeysay hooyo way noolay aabana wuxuu dhintay adoo Itoobiya jooga war kama haysid laakiin hooyo war maayo waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leeyahay ku dhaqaaqo maayo muslimiinta meel kasta oo joogto naga soo gaaraan ku oranaya waan gaari ku fulu maayo aragii shaqay meesha ka soo saare waaba wadiin karam maayo waa iliba wadan karam maayo muslimiinta meel kasta oo joogto naga soo gaara waan iska tagayaa intaasaan ku dardaarmaya walaalo laakiin anu ama dhimto ama noolaad waan ka soo baxay kuwa absi ku jiro ilaa ay ka soo gaaro
وأنا أدعي إن شاء الله أما ورمون وما سمالي ونق إلى يكسوغا ولا لا مثال leedahay aad ku ogeedin nolol كيشنا وأنا كان وقع dadka xabsiga kugu yimaada dhaqaalaha leh dadyo kala duwan ayaa jiray arrinkaaga ma u bandhigi jirtay ma oran jirtay iga bixiya magta maxaad kala kulmi jirtay walaal waa la halin jiray qaar badan inta waan ka beenayaa oo yiri qaar ku dhintay qaar wallahi u jooga imkan waana suustaa ilaa mar ilaa halkan dhowr jeer waa la ii sheegay oo nagu waay walaalo asla walaal lagu waay kaygi waas ka seeloon waan dooniyaa reer Soomaaliland waan sheegayaa iyo dawladda Soomaaliland nimankana habsi ku jiro ammaan ala siidaw ammaan dalkiisa ala helo intaas uu dardaaramaya maxaa u dardaarmay isku celi ammaan meel walagi ammaan ala siidaw ammaan dalkiisa ala helo nimanka habsi ku jiro nimanka ka soo jeeda Itoobiya ka soo jeeda ala siidayo ama dalka ku celi ka waran markii Itoobiyaanka xagga joogay bal looga waran yani warbixin naga sii walaalo sidii qof meesha ku jira kiisa galaba reer beedeeyo reer ahmar waya kawa sagalay 10 sano ku jira mid waa ku jira sanadkii 20 ku jira qaal 12 ku jira oo kaagu jooga nimanka sidii qof meesha ku jira oo Itoobiya ka soo jeeda kiisa galaba reer beedeeyo waa reer beedeeyo raga maxaad oran lahayd koran lahayd wallahi waan u duwaanayaa waa Allah li waan qaban karmaayo waan u duwaanayaa kasoo gaaran qoranayaa kasoo gaara inta meesha ku dhimanin maxaa ku qorshaysan imika maadaama aad soo baxday Hargeysa joogtaa halkan aad joogtaa shalay baad soo baxday mustaqbalka maxaa ku qorshaysan inkastoo aan maqlaynay inaad doonayso inaad baxdi laakiin miyaad jeceshahay inaad joogtid miyaad tegaysaa haddaad tegaysid halkaa maxaad ka qaban doontaa insha Allah walaalo hadda ilaahay muslimiintu oo sakale hadda waay ilaahay noo soo dibe waan doonayaa inaan dalka kayga iska nago hadda waa soo waaye halkan meel magaalada iska jiifiya ma shaqaysan karamaayo waan jilay afsiga ii dishay waan dardaaramayaa muslim iga soo gaara intaas aan u dardaaramayaa waad silad xabsiga ku jiray kasoo gaadha ayuu ku soo gabagabeynayna walaalkeen yani haloo gurmado garabna hala siiyo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.